alle naxariistii jannaha ka waraabiye meydka wiil 48 saacadood ku jiray balli ku yaalay deegaanka Waalid Xoor oo u dhaxeeya degmooyinka Allay Baday iyo Geed Ballaadh ayaa maanta la helay kadib badmaaxayaal looga yeedhay magaalada Berbera. marxuunkani oo lagu magacaabi jiray Khadir Cidla Nuur ayaa 2 maalmood ka hor ku geeriyooday ballaygani. mid ka mid ah ehelada marxuunkani ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. eheladiisu buu tagay edadii meesha taalo u tagay dabeetee qadarkii baa dhacay ilaahay halkaas balligaas ku waday. doorkii baan loo soo sheeganay hadaan ka baxnay biyihii tog way socdeen balliguna uu buuxsamay habeenkii ilaa intii galkii oo tabaarka ayaan joogin ilaa shalay ilaa niman baa laga soo qaaday baashi Allay Baday rag baa Hargeysa laga soo qaaday shalay oo dhan ilaa casarkii ilaa 10kii subaxnimo waa lagu jiray balliga. ilaahay hadana ma qadarin in la soo qabto ku yaala tan walba biyuhu way ka marayaan dabeeta xaqaana qayb bay ka marayaan xaqaana qayb ilaahay markii uu qadarin baa la soo qabto la soo saaray maalintu ku dhacay iyo shalay iyo saakol maato laga soo saaray laba habeen iyo 2 maalmood ilaahay nimanka uu qadaray Berbera laga keenaa soo saaray qalab xidhnaayo wixii quusiyo isku jiintii wixii wada xidhnaa iyo ilaahay u qadaray inay soo qabtaan ay soo saaraan. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. xildhibaanka dhammaan hawshii loo diray waxaan ku guulaysanay gabageedaba 30 daqiiqo ayaan ku soo saarnay meydkii aan ku soo gabagabaynay biyuhu aad baraf ahay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. xamsi cabdirashiid shakhdaris MMTV Gabiley.